asxaabta qaaliga dad badan ayaa waxay soo weydiiyeen sida Apple ID-ga loo bedeli karo. Marka Apple ID-ga intaadan bedelin ka hor waxaa loo baahan yahay marka hore midka marka ayada ku jiro in aad sign out dhahdaa mise aad ka bixisaa. Marka haddaba muuqaalkan waxaan idinku tusi doonaa qaabka Apple ID-ga aad uga bixin karta telefoonka marka ayada aad rabto inaad ka bixisa si aad midka cusub aad u gashato. Marka let's do it. Settings ayaad galaysaa kadib Apple ID-ga hadda ku jiro magaciisa ayaad taabanaysaa. Kadib waxaan rabnaa marka hore hoos ay usoo degaysaa qaybta hoose meesha ugu dambe imaanaysaa ay ku qoran tahay sign out-ka. halkaas ay imaanaysaa meesha sign out-ka ayaad taabanaysaa. kadib markii aad taawatid wuxuu ku leeyahay password-ka hadda aad isticmaalaysa geli. kadib password-ka ayaad gelinaysaa. password-ka markii aad gelisa kadib qaybtaas turn off-ka ayaad taabanaysaa. turn off markaad taabato halkan intuu si fiican u dhigayso meeshan haddii aad mobileka qof kale aad siisay ama qof kale uu isticmaalayo aad ku wareejisay mise uu ka iibsaday mise uu ka qaatay information-kaada dhan sidaas ayaad ayuu ahaanaya, waxba ha ka bedel meeshaas sidaas ha ahaato information-kaada uu ka baxaya. laakiin haddii aad adiga isticmaalaysid mobileka weli Apple ID kala rabto inaad ku isticmaasho information-kan inuu kusoo laabto ayaa wanaagsan. marka waa wada taabanaysaa si oo iCloud-kaada uu kugu galaadhow markii aad sign out dhahda. marka waa wada taabanaysaa. haddana tusaale ahaan waan wada taabtay. kadib sign out ayaad taabanaysaa. sidaas ayaadna oga baxday midka kale ayaad gashan kartaa.